السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صوماليدا بل كسو عرورة فيسبوك كسو عرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين دادك صاحبة ولا لها فانسكا دمان انت مقال كيغا اي مقال كيغا تقانو وان إذن ذو السلامي محاربا إنان كالو أرين يروح حساسي ومحال الله إشاك شالي إلا حبين هورا إلا إيمانتا قابسة فيسبوك oo waxsaas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka la rabaa soo wayna soo wada gashaan moodo joogtaan mana i maqashaan 300 ku jirto hadda soo wadan galay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isheeg sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la isheeg oo hal sano ka soo wareegtay حفلة بس سمعنا أنا جي حاس كيجا محل إيشة حفلة دي بدت كمحل إيشة أنت وقبل بدن ضدك أي هذا الحين وحرب أنا عرنتاس وحير أو محل إيشة مهم أنا إذا كره ضدك إدعوانا أيضا وحيت هاي عرنتاس ير أو مهم كأو أنا إذا كره المحل إيشة هرت حفلة ده أنا قد جاني وحي هاين أروس وحي هاين سنة جورو محل إيشة وح أروسنا وح مدامن وحي سنة جورو دي ذكوات أروس كيجو كلا إهاد أو أنا جمرك أروسنا واحد حفلة إيو محل أروس إيو حسمانا ديجان أو واحد مركزي أو مهم نلا مسي نقول لكن واحد مهم نلا إهاد إن حفلة ديجان أو محل إيشك سنة جوري دي بعد ديجان سنة جوري دي محل إيش وقت في عم بنقوة قادرنا وقت محل إيش قروح بدن بنقوة قادرنا وقت ما شاء الله لقى شيء كي بنقوة قادرنا سيدا درتد واحد عادي صور إن لقى سوق هذا سنة جوري ده أنا عندي جنين waxaan sameynay maxaa la ii sheeg toortadii baan afka isku gelinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markaan afka isku gelinay maxaa la ii sheeg waxa dhacday inaan is shumino oo hal mar aan isdhun karno taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee awlaad leh maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la ii sheeg meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan waligood baa inta reer magaala iyo inta Soomaali iyo dadka dhaqankeenan maxaa la ii sheeg yaani aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahay ii sheeg ninka iyo naagta isqabo markay maxaa la ii sheeg toortada jaraan inay afka iska shumiyaan ina afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la ii sheeg wax madaxa la qabsado oo a'uudu billahi minash shaytaan rajiim la dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto maxaa la ii sheeg aniga naagtan shumiyay ama gabadha aan shumiyay ma aha gabar islaameed ma aha naag wada iska soo raacnay ma aha naag maxaa la ii sheeg oo islaameed oo maxaa la ii sheeg oo friends aan ahay waa xaaskeyga xalaashi ahayd haddaan afka ka shumiyo intaan toorta jirno anagoo farxad ku jirno maxaa la ii sheeg haddaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maxaa la ii sheeg oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso sidaa darteed maxaa la waxa rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka Soomaalida oo dhanba maxaa la ishay Facebook wada inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jirnaa hal mar afka iska shumina weligeedii aan la arki jiray dad isqabo oo dadka ama aday aroosiin ama haddii sanad guur dhiganay ama haddii farxad ka dambeysay inay dadku maxaa la ishay markay toortada jiraan waqtiga toortadooda la gaar inay hal mar afka iska shumiyaan si caadi ah maxaa la ishay xafladooda ugu soo dhamaato marka waxaa la sameeyay waxa laga soo duubay fiidiyogaas hadda wax idin ka leeyahay fiidiyogaas wax maxaa la ii sheeg waqti saas u sii dheer ma uusan ahayn soo wuxuu ahaa fiidiyoga markaan toortada saas u jirnay hal mar baan dhac sina waa sii kala tagnay sidaas baa waxa laga dhigay fiidiyoga baa inta la soo qabtaa waxa lagu furay story oo maxaa la ii sheeg in waxa laga dhigay wixii 10 daqiiqo ay yihiin oo isku soo dhawaanayaan ee hal mar afka isku haayaan ee isdhuuqayaan ee haddana maxaa la ii sheeg sii kala tagaan wax dhuuqmal la horta meesha ma oolin maxaa la ii sheeg waxa sina waa anshax daro waxa idinka anshax daro ka dhigaysan dhuuqmada ay sheegaysan waxa sorto wax meesha yaala iyo wax meesha ooli kareyba ma ahayn shumis yar u ahaa sidaas taasna farxada naga keentay wax oo maxaa la ii sheeg maanta oo saas u sii weyn nin yahow xaaskaaga maxaa u shumisay nin Kacbe iyo Madiina gubay maxaa la ii sheeg nin Madiina gubay
aniha iga dhigan waxa nin maxaa la isha waqtigaas maxaa la farxadeed hal mar xaaskiisa shumiyay wax weyn taas ma keenayso marka halka dhib ee ugu weyn ee meesha ka taagan baan rabaa horta inaan hal mar idin sheego waxa jira oday maxaa la isha waalan oo jinni ku dhacay gabadha ama siiyo maxaa la horta oday jinni ku dhacay jira oo waalan oo ilaahay cadaabkaas ilaahay horta cadaabka waaba geenayaaba oo maxaa la isha qaatumadii gabyay maxaa la isha asaga iyo dhan wuxuu ku soo aruuray inuu maxaa la ciyaalka u dhali karo hari habeen oo la tirsado oo maxaa la isha oo la caaytamo marka waa odag la dhaari caliso maalin hore waxaan sameeyay runtaan ka sheegay intuu yimid aan runta ka sheegay wallaahi oo bilaa inaan been idin sheegay wuxuu gaaray heer dhalinyarada saaxiibada aan ahayn oo isla soconay inuu midba maalin intuu soo wacay uu yiraahdo hey assalaamu calaykum wa calaykum salaam hebel ma tahay ha waa aniga waa daahirkii asaga ah haye maxaa u baahneed walaalo waxaan rabaa inaan arrin ii jisho maxay tahay arrintan ku jilaayo inaad samayso maxaa la ii sheeg ninka dayax liraa soo saaxiibo matiin ha soo best friends matiin ha waxaan rabaa inaan u dan sheegato si been ina maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato oo aad tiraahdo maxaa lahaa waxaan rabaa inaa dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg biilkaaga iyo maxaa la waxa ku noolaan lahaydaan ku siinaya waxaan rabaa inaa gurigiisa inta tagtid oo maxaa la waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filimka la daawanayo ama halka nigiska uu wato ama waxaas uu wato inaan sawir iiga soo qaadi oo sawirkaas iiga soo dirtay ninkaas dagaal oo igula jira saano u yeelay waxaan rabaa inaa maxaa la ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeelo horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay ku maxaa la ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haysta ilaahay ha ka dulqaado wax kale oo ka hadlay ma jiraan arinta muhiimadda ahayd oo maxaa la ii sheeg dhalinyarada qaladka fahanteen walaalayaal gabadh asxaaskayga ahayd hal mar baan issuminay waxaan sameeynay waqtiga toortada la jiray ee farxadeena ahayd Soomahan muhiimadda aan fiidiyoga u soo galay oo fiidiyo u soo duubay intaas ay ahayd arin waxaan rabay inaan idinka jahil bixiyo maadaama wax badan maxaa la isha isku wareerisa social media ay wadwadeen waa mahadsantiin idinkana ilaahay idin sharfo ilaahay idin karaameeyo khayr Allah idin siiyo waana mahadsantiin mac salaam